dalkan anaga iskala shacabaan nahay idinku xasan sheekh maxamuud ma tihiin dowladana kuma jirtaan war shacabaan nahay annagoo dhanaa shacab ah annagoo dhanaa dhibaataysan war dalkan waxaa la rabaa inuu hagaagaa la rabaa marka dalkan yaan lagu ciyaarin war dalkan yaa lagu ciyaarin khatartaas hadhow aday kugu soo laabanaysaa war khatartan dad waaweyn baa tihiin caqli leh oo aqoon leh oo dowladaha adduunka la socda qaabka u shaqeeyaan maalin walba wararkaad dhegaysataan waxaa meeshaad joogtaan waxyaalaha si dowladnimada u shaqeynaysaad arkaysaan dowladnimadu horta waa maxay dowladnimadu waa inaan sharciga lagu ciyaarin shacabka damiirkooda inaan lagu ciyaarin weeyaan shacabka caqligooda waa inaan lagu ciyaarin sharaftooda lagu ciyaarin waa in dhiigooda aan lagu ciyaarin waa in shacabkan loo fikiraa siday ku noolaan lahaayeen dowladnimada saas weeyaan laakiin xasan sheekh maxamuud shacabka dhiigooda ku ciyaara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي شرفت الله مركلة iyo muuqaal aad u xiiso badan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa maxay tahay dowladnimada dood arintaas ku saabsan waxay dhex martay taageerayaasha mudane maxamed cabdulaahi farmaajo xabiibul malaayiin iyo madaxweynaha haatan talada haayo xasan sheekh maxamuud muuqaalkan ayaan kaga hadli doonaa haddii aad janaalka ku cusub tahay please subscribe muuqaalka ii like garay siina share garay si uu dad badan u gaaro madaxweynaha hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo xabiib malaayiin iyo madaxweynaha haatan talada haayo taageerayaasha iskugu yimaado aalada social media arrimo kala duwan oo quseeya siyaasadda sida kale waxqabadka dowladnimada Soomaaliya sida la sheegay in mar walba ay muhiim tahay in dowladda Soomaaliya qof walba oo madaxweyne noqda shacabka Soomaaliya uu muhiim u yahay dowladnimada Soomaaliya ayna rabaan mar walba in ay arkaan dowladooda xor ah oo nabadgelyo ah sida kale iyaga oo ku jira dowlad wanaagsan oo caalamka laga dambeeyo balse intay jirto isqabiilaysi sidoo kale waxyaabo la xiriira arrintaas waxaa gebi ahaanba meesha ka bixi doona dowladnimada Soomaaliya taasna waa waxyaabo badan oo ka dooda dadka falanqeeya siyaasadda ayagoona sheegaya in ay wanaagsan tahay dadka qulubtooda la geliyo wadannimo sidoo kalena daljacayl laga saaro Soomaalida wax baabi'iyey qabiil balse dhagaystow adiga maxay kula tahay sida aad u aragto doodan kulul balse maxaa kaaga soo bixi doona fikradaada waa ii muhiim commentiga iigu reeb igula wadaag siina sheer garay si uu u gaaro dad badan oo qalbi nadiif leh oo Soomaalinimada aad ugu weyn tahay oranay qoray qaata iska celiya al-shabaab awra qatar waa adduunka oo dhan baa waxaan argagaxisa weeyaan shacab masaakiin oo ooman oo ilaahay roob uusan u keenin 5 sano u keenin oo xoolahoodii ku dhamaanayo dadka hadda qaarkood waxay bilaabeen bal inay isxijaan isdilaan abaarta iyo rafaadka haysto marka xasan sheekh maxamed waxa la rabay shacabka culayska inuu ka qaado oo yiraahdo war dowladana la dagaalayso waraa cabdiqarmaan sababta baro dhanba waa ku ciris waa warbalfi waraa cabdiqaniyow inaad maqlaysaa waxaad diidanta adigu ururkan macawisleen intay qoryaha qaataan inay ka qayb qaataan horumarka oo dadkan de magaranaysaa argagixisada inay waddanka ka saaraan maxaa ku diidantaa waxa adigu hadda daliil ka dhiganaysaa oo leedahay hadhow ayagaa isku leenahay meeshan dowlad baa jirta niyow waxa weeye nimankan laga keenayo afrikaanka waxba qabamayaan dadkan deegaanku haddaysan dadka iska kicin waxa weeye cid u maqan lama arko adiguna waxa haddaa u muuqatid maaragtay nin le qoryaha waa loo dhiibanoo dadkan waysa iska dulqaadan de waxay ila tahay waxaa u jeedaa mataqaanaa inaad ka raallitay de inay sii haystaan gobolada deegaanadii geelo waa soo kufiyadaa saaxa waa soo kufiyadaa soo kufi dhaca cabdiqani xoog sida waad maasantahay horta dowladnimada ay macisleydan qatar ku yihiin macisley magaalada muqdisho joogan ciidanka indha cadda uu haysto waa macisley waaye magaalada dhexbartamaha inay istaageen ayay wuxuu yiri indha cadda dowladnimada dalkan dowlad kama jirto marka saasoo kale tay oranayaan in magaalada muqdisho yimaadaan macisleyda birri ay yiraahdaan war dalkan dowlad kama jirto annaga ka talino annaga meeshan qabsanay waxaasna waxa weeyaan waa aqli xumada hadda iyo qaabka loo fikirayo weeyaan waxaan dhibaatadan birri imaanaysaa inta imaanin ka hor waa in laga hortagaa
berri in la yiraahdo ma aha war see waxaan loo xalliyaa see u xallisa adaa waxaan soo abuuray geed aad soo abuurtay waay war geedaha la abuuranayo khatarteeda leeyihiin geed qodax leh haddaad abuuratid berri aduu ku mudahaya war dalkan yaa lagu ciyaarin walaalayaalow idinkoo is oranahaya maantay qaarkiin waxaa laga yaabaa dowladda inaad qabiil ku taageersantihiin war dowlad qabiil laguma taageero iisuga aniga haddeertaan xasan sheekh waxaan ku taageeri lahaa axmed madow waan ku taageeri lahaa qabiil ku taageeri lahaa iyo xamsaan qabiil ku taageeri lahaa sababtoo ah waa niman aan ilmaadeernahay weeyaan qabyaaladdu waxay sheegaysa ma laha waxaa ka wanaagsan waxa weeyaan war dalkan ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka dhaxeeyaa kursigan waa kursi shacabku ay leeyihiin qofka ay shacabka ay doortaan oo shacabka u adeegahayo ayaa ku fadhiisanahay laakiin nin ummaddii dulminahayo oo dulmigaas adigu soo gaarahayo oo carruurtaadii qurbaha aad la joogtid oo carruurtaadii ay gaalo noqonayso oo dalkii adiga aad ka shaqaynaysid inay dowlad xumo ka dhalato haddan xasan sheekh maxamed maxay ku taageersantihiin oo farmaajo aad ku diidayseen waxa lagu diidaa waxa weeyaan qabiil weeyaan war qabyaaladda soomaaliya iska daaya ilaahay ka baqa qabiil inay lahayn anaa hadda kaaga jawaaba taas fiiri runa iisu gobolka hiiraan runa iisu marka ilaahay laga toddoba baqo waxa weeyaan maalmood oo xiriir ah fiiri 7 maalmood oo xiriir ah ciyaaraha hidaha ee dhaqanka iyo dabaaldega aad toos uga socdoon oo maalin istaagan madaxweyne farmaajo markii la doortay 7 qofood dad ka badan 10 qofood dad ka badanna waa ku dhaawacmeen oo isbitaallada lala dhigay soo wax garata maahan in adeerow sidii gobolkaas looga soo dhaweeyo gobolada Soomaaliya dhan gobol looga soo dhaweeyo ma jiro haddana waa ogeeday soo noo galay xeer wuxuu gaaray xildhibaanadeeni intuu qarxiyo ku xiro oo ugu dhex qarxiyo oo macnaha guryahooda ugu galo ku dhex qarxiyo in adeer waxaas camal marka ma anaga ma fiirsan karno ma fahanti maya xildhibaanadeena qarxaashaas waxa weeyaan cabdiqani qabiil meeshaan waa lagu soo gaba difaacinayna rune waxay dhihi kaada cabdiqani abo waa ku xushmeyna xushmeen soo gabagabay keliga in aad waan soo dhegeyso gabagabeynaya ummadaan waa dhan soo gaba saddex daqiiqa basaan qaadanaynaa aniga hadda 3 daqiiqan qaadana hal daqiiqa kuma darsanayo marka waxaan rabaa cali xoogse yusuf kulli in laga 18 dadka dhan aan wada siinaa rabnaa ma fahat soo kufi brother soo kufi maya waan soo kufiya aniga hadalkaygu waa kooban yahay aniga waxaan rabaa dowladnimo saxan rabaa dowladnimada inaan lagu ciyaarin weeyaan okay dowladnimo saxaarata laakiin qaabkii xasan sheekh saxda maxamuud ahaa waxaan oranayaa dowladnimada ku ciyaarin taas weeyaan intaan oranayo okay waa mahadsan tahay brother waa mahadsan tahay niyo horta dowladnimada waa la wada rabaa laakiin dadna qaab qaldanay u rabaan dadna qaab saxsanay u rabaan adigu marka waxaad u rabtaa qaab khaldan baad u rabtaa qaabka saxsanaa baad ka leexanaysaa waxaad u malaysaa mataqaanaaye in mataqaan opposite aad tahay oo meesha dowladda u socotay meel dhan kale taa u socotaa macnaha jahwareer foos wareeraa ku hayo propaganda lagaa dhadhiciyey muxuu ahay mataqaanaaye in macnaha dowladdii hore ma ogi dowlad kale ay soo marin soomaaliya lagaa dhacsiiyey dhinac walba ha lagaaga dhacsiiyo ama qabiil ha noqoto ama muxuu ahaye mataqaanaaye lacag ha lagu isticmaalo dad ha lagugu fangareeyo qaab khaldana wax lagaaga dhacsiiyey fiiriya marka tusaale yaraan kuu soo qaadanaya xasan sheekh maxaad ku taageerteen aan leedahay anigu xasan sheekh isku qabiil ma nihin waxaan ku taageeray waxaana midda kale kugu sii daraya waxaan u malaynayaa dowladda farmaajo ayaa dowlad aad indhaha ku dhaqaado tilaabtay qaadaba aad la socotaan u malaynaya dowladihii ka horreeyay waxay soo qabteen hataa haddii wax lagaa weydiiyey inaad garanayna macquul ah dadka badanaa meeshaan ka doodana saasay u badan yihiin nabadii nolol okay anigu waxaan la socday ilaa iyo dowladda cabdiqaasim baan la socday dowladaha soo maray dowlad walbana waa taageeraya wax un bay samaynaysa laakiin dowladda xasan sheekh sababta aan full support u siiyey 4 sano iyo 6 bilood ay haysatay waxyaabo itus oo itaabsiya aan ka dhaxlay